assalaamu calaykum. waxaa jira dhacdooyin qariib ah oo ka dhaca caalamkani aadka u weyn, kana dhaca xilligan la joogo, waayihii hore iyo xitaa waqtiyada soo socda laga yaabo inay ka dhacaan. la yaabka, anfariirka iyo waxyaabaha lala tacajubo ayaad arkaysaa inta aad nooshahay. mar kasta oo aad aragtana waxaad isweydiinaysaa, waxaani sidee bay ku dhaceen oo maankaaguba ma aqbalayo. muuqaalkeenna maanta ayaan kaga hadli doonaa ama aan kaaga sheekayn doonaa nin reer Talyaani ah oo lahaa 3 lugood, 2 ma aha waa 3 lugood, 16 farood iyo 2 xubin oo taran. xilligaas dadka waxay u ahayd la yaab iyo amakaag, sababtuna waxay ahayd tiknoolajiyadda iyo cilmiga caafimaadka halka maanta laga gaaray waagaasi ma uusan joogin. waxuuna la yaabkaasi adduunka la joogay muddo dhan 77 sano ka hor muuqaalka. haddii ay tahay markii kuugu horeysay janaalka aana danaynayso sheekooyinka caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe na saar janaalka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelino ee waxtar kale. aan bilaabo fiidiyowga. magaciisa waxa uu ahaa ninka aan ka sheekaynayno maanta, Francesco Franca Lentini. waxa uuna ku dhashay jasiiradda Sicily ee waddanka Italy sanadku markuu ahaa 1889 bishii May. 12 carruur oo la dhalatay waxa uu u ahaa kan shanaad. isagoo yarna waalidkiisu waxay u direen eedadiis iyo adeerkiis si ay u koriyaan. halkaas ayuu ku koray Francesco, kana bilaabay noloshiisa hore u socodka lahayd. Francesco ayaa adduunka kaga yaabsaday dhalashadiisa lahaanshaha 3 lugood oo si fiican loogu jeedo iyo 1 lug taasoo aan dadka u muuqan. ninkan ayaa sidoo kale lahaa 16 farood iyo 2 xubin oo taran. waa cajiib marka aad aragto abuurista Eebbe iyo awooddiisa, waxa ayna mudan tahay inaad ku cibro qaadato. lugta afaraad oo aan inta badan la tilmaamin ayaa kaga taalay jilibka lugta 3aad dhankiisa hoose. sababta aan loo carbaabin lugtan ayaa ah inaysan dhammaystirnayn sida lugta 3aad oo kale. Lentini ayaa waxaa la sheegay inay ahayd sababta yeelashada 3 lugood inay ahayd mataankiisii oo ku dhex beermay, waxa ayna ka xiriirsameen qaybta xiriirka ama afka qalaad loo yaqaano isbeenka, sida fiidiyowgii aan kaga hadlayay wiilkii maskaxdiisa laga helay lugta iyo gacanta. haddii aad danaynayso muuqaalkaasi inaad daawatid, qaybta sare ka daawo, halkaas ayuu kaaga soo muuqan doonaa. like-na saar muuqaalka haddii uu ku cajabgeliyey. Franca intii oo noolaa oo dhan waa uu lahaa 4 lugood oo midi yarayd iyo xubnihii taranka ee 2 ahaa. marnaba iskuma uusan dayin inuu iska jaro lugaha dheeriga ku ahaa isaga, maxaa yeelay dhakhtarkiisii ayaa u sheegay haddii uu damco inuu iska jaro lugta 3aad inuu noqon doono mid baralaati ah, sababtoo ah waxay la xiriirtaa xiriirkiisa lugtaasi. 12 sano jirkiisii Francesco waxa uu la kulmay nin la odhan jiray Vincenzo Magnano oo lahaa golo ciyaareed wareeg oo meelo kala duwan ku soo qabta bandhigyo kala duwan. Magnano ayaa Franca u soo jeediyey inuu qayb ka noqdo bandhig ciyaareedkan maadaama uu u arkayay inuu ku habboon yahay halkaasi, uuna u leeyahay haybad iyo qaab ciyaareed wanaagsan. kadib bandhigyadii dhacay xilligaasi, Franca ayaa noqday kan loogu jecel yahay golo ciyaareedkaasi, kuna soo jiitay indhaha daawadayaasha lugtiisa 3aad. dadka ayaa indhaha la raacayay ninkani qaabka u maamulayo lugtiisa iyo wacdaraha ay soo bandhigtay. waxa uuna noqday kan loogu jecel yahay in bandhigaasi laga daawado. Francesco marar badan lugtiisa 3aad waxa uu ahaa mid ku istaaga marna ku fadhiista, taas oo keentay dadka inay su'aalaan
halka uu kaga soo gado kabtiisa saddexaad lugtaasi. Faranka ayaa waxa uu ku jawaabay inuu had iyo jeer soo gato 2 kabood, kadibna uu siiyo kabta dheeriga ah dadka ay ka maqan tahay lugta kale ama halka adin la. Francesco ayaa guursaday sanadku markuu ahaa 1907 haweeney lagu magacaabi jiray Teresa Murray, una dhashay 4 carruur ah, kadibna ay kala tageen. Kala taggii Murray, Faranka ayaa guursaday gabar kale oo lagu magacaabi jiray Helen, waxayna isla noolaayeen ilaa dhimashadeedii. Ninkan ayaa geeriyooday sanadkii markuu ahaa 1966 isagoo jira 77 sano, waxa uuna ku geeriyooday waddanka Maraykanka. Ugu dambayn, gundhiga sheekadan ayaa ahayd in abuurista Alle iyo sida uu kaa dhigo ay tahay tii nafsad ahaan adiga kuugu habboonayd. haddii aad isticmaashid kartida iyo awoodda Alle kugu beeray, waxaad gaaraysaa heerka aad jeceshahay. noloshuna ha kuu noqoto mid aad cashar kaga qaadato, ayaysan kuu noqon mid kaa dhigta qof liita oo dadka iska hoos mariya. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato, commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha Allah.